سان محي هدي شاك هذيك خلاص يخيل انك كان اني خورتنك جوها ويل كاغا مر هوريان نهي انيغا امان اسي عيدن كيغنا نبدغلي دور جير markaan ku celceli warka waa iga diidi laakiin warkiisa waxaan ka dhigi san inaan yeelan safeteeda amari war shaqaale xun darteeda miya wiilkayga aniga u dilaysaa ii sheeg adiga dadka aan ii joogaan shaqaale inay sharaf lama kala baxsana dhiigooda miday yihiin haddii adigana warka aad badisid beer camal haddaan kuu shafo waayaan ku dhahay habartay xalaal mi igu dhali muddo laba maalmood gudahooda qoladii ku guuraysa dagaalkaas xilka boqortooynimada hal san ayada haynayso haddii qolada kale ee keento wax qallaasa ah ama arbushaad ay ku samayso qolada boqortooyada ah anaga ayaa talaabo sharci ka qaadayno taasaana lagu keeni karaa xal waara oo nabad ah shacabkan ay ku badbaadi karaan taas xal uma ah labadiina boqortooyo keliya ee waxay xal u tahay shacabka idinku hoos nool oo idin oo dhibaatada ku jira waa inaad shacabka u danaysaan dadkayga inay dadkaas dhibaato gaarsiinayaan aniga ayaa ballan qaadaya waa haddii ayaga laga helo laxbugta ku hirtisa taas ma danno naqdahay maya idaafa iidayaan ku dhahay kan ii xulufadiisa hal xaajiima buuxiyaan lama bari haddii ku dhamee waay beenaan ii sheegi qaali u soo dig dadkaas inaan dagaal ku soo qaadayo suldaan sidee kaa noqotay ninkaas sanad iyo saacada iyo sikimaba nimankeena ayuu dhameeyey adigana hadda dagaalka haddaad gasho anaga yaa noo haarayo mise xaaraankaas xaaraan ku dhalay khabaan u wada noqonaynaa kulligeen markuu dhalanayo markuu dhimanayo min allahi ka qoran tahay wax walbaba anigana nasiibkeyga kolley gacanteeda ayuu soo gelayaa dadka masaakiimiinta oo xaqooda la gelayna inaan badbaadiyo waa hobbigayga waa noo dhammaatay eber waana la xaalafiyey annagaa hoogna waana bi'iyeen kuwan waana bi'iyeen inkaartii mandhici weyn ha ku dhacda kuwan sibda shiirayo war la soo shoobiya aniga ma aqaan aniga ilaa iyo ninka la yiraahdo surya fanshi gacanteyda dhiiggiisa as soo gaarin degnaan ma helayaan ku dhahi sheekada iga joojiya shoo isarac suldaan suuriya waymid suldaan suuriya markiisi maaday minkeena dhan waa gubtay yaa khay sacbalati surya minka hadii isku ishaar bihiga xaqin camal ugu xaqa suldaan suuriya suldaan suuriya berinta u sheeg ninkan inaan dagaal qaadi doonno aniga beri inaan dagaal qaado diyaar ayaanu ahay cagtii joogsa weyse mar bay ceeb la kulantaa ishii wax xun arkaysana waa dhici afkaha disdibka buxa aniba gacanteeda dabaa ka baxa oy kashiito haa mudane ninkii adeega u gey aan ku dhahay dagaalka diyaar ha u ahaado miga cabsada shaarbihayga maska cabsadi intaas gali ma dhuuntii ninkaas nin ballanta ku dheer waayo oo boqortooye ah waana imaaha waa huwa mudanikaas kaale aniga adeeg ayaan kuu dirnay mahayne ninkii inaad noo ammaanta miyaad noogu timid meeshaan carabkaad ku ammaantay ayaan kaa goynayaa aniga caafimaadkayga waxaas ku jira hashan il waxaan kala furaa suryaa bartaabsiin hilibkiisoo jarjaran markii ii keentiin oo ay idhahdiin hilibkiisa waaye keligeygana ma cunaay ballan waaye eeyadan siihaa ii keenaan ku dhahay nolol ma ku rabi ninkaas aawe ninkii aad ku faanayseen oo dhahayseen dhiigya cab waaye ma dhuunti markuu maqlay rag inay ma cabsanin waa libax libaxna sidiisa ma cabsado beledii baadiiba si xuraaya wuxuu uga ogaarsadaa soo moogid adiga shuu waryaa aniga haddii aan gacan qaadayo dad ayaan ugu gargaaraa laakiin dadan dila haddii aan dhaho kanan khabuuran ka dhiga maanad igu arsanaysaa hore looma sheegin ay in uu libaax ugaarsado aniga maanta gacanteeda waxaan u qaaday dad ayaan badbaadiyey laakiin dadan dila haddii aan dhaho ugu faracaaga ayaan baabi'inayaa aniga ee waxaan rabin inaan sameeyo hay u khalifin adiga iyo shaadhac tiirka shaw waryaa cawar ibliisaa la yidhaahdaa dadka dhan waa yaqaanin hal ma idinka reebay war maxaad dili kartaa adiga cid aad dili kartid ma laha ilaaha wax dili kara ilaahna wax noolayn karo ibni aadan hadday ugu badato qof dhinto oo keliya ay duwi karaan ma ahane qof nafta kama goyn kara aniga waxaan ku dhihi lahaa cadaawa hoostooda ka soco badbaado aan dad badbaadina ayaan hadda gacan u qaada laakiin qofaan dila haddii aan dhaho ogow adiga familkaaga ilmahaaga
idaba dhilafyada adiga kula socdo kulligood dhulka ayaan ku darayaa waxaad waynaysaa nin rag oo adiga kuu dagaalama maanta dhulkan sharaftanahan ku dhaartay cirkaanan ku dhaartay mar damba haddii aad isku daydid in aad tillaabo soo qaadid ogow inaan dhulka kula jaraayo maanta laga bilaabo suryaa bartaab ayaa amarkiisa meeshan uu ka soconayaa cid kaloo amar dhiibi karta ma laha suldaannimadana ha u malayn iska doondoon in ay tahay ee waa loo dhashaa రాజు వచ్చినాడో చినరాజు వచ్చినాడో వస్తు వస్తు పండగ తెచ్చినాడో ఊరు వాడ గడపల్లోన ఉన్నవి పంచినాడో రాజు వచ్చినాడో చినరాజు వచ్చినాడో శ్రీ 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 రాజా కాసిరెడ్డి నువ్వు విసిలేస్తే ఆంధ్ర సోడా పుట్టే శ్రీ 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 రాజా కాసిరెడ్డి సంతోషమనే సామ్రాజ్యానికి రాజాధిరాజు నేనేగా కాశీరెడ్డి వంశానికి మూలం తారక సింహుడు ఆ తారక సింహుని తనయుడైన మర విక్రమ సింహుని కడుపున పుట్టిన ప్రతాప సింహుని ఇంట్లో వెలసిన సూర్యసింహుని సూర్యసింహుని వంశం నిలిపిన రుద్రసింహుని అంశను మోసిన వీరసింహుని వారసుడై కాశీరెడ్డి విజయధ్వజ శ్రీ సింహరాజు వచ్చినాడో చినరాజు వచ్చినాడో శ్రీ రాజా కాశీరెడ్డి నువ్వు విసిలేస్తే ఆంధ్ర సోడా పుట్టే శ్రీ 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 రాజా కాశీరెడ్డి నువ్వు విసిలేస్తే ఆంధ్ర సోడా పుట్టే kuwaan odayaasha xaafadda waa inay ku mahad celiyaan ay umaadeen marka adiga sidaasay ku socdaan waa ku salaamo wiilkaygii waa idinka qaadeen muddo 25 sano ah ayay dadkan nagu tumanahayeen maadaama gacan aad u qaaday dee nafteenna xataa waynu ku huraynaa waa ku garab taagannahay ha ka baqin dee midtaa hal mid sameeye haye beerihiina guba ya guryihiinana burburiya haddii beeraha lagu macuneena teeda kale haddii guryaha kaguna inta tegaynaa war hedha waxaad ka fikiraysaan haddii adduunya markaan idin dhaha beerihiina guba waxaad dhahdeen maxaan cunaynaa annaga markaan idin dhaha guryihiina burburiyana waxaad dhahdeen halkeen ku hoyanaynaa war hedha haddii adduunyasaan ayaad u qadarinaysaan ood u qiimeynaysaan naftu alla idin siiyey maxaad u qadarin laadihiin markaad dagaal iyo fawdo iyo balaayo iyo dhiig in la daasha aad u horkacaysaan maxaad tihiin adinka maanta wixii ka dambeeya ma ogoli dagaal inuu gobolkan ka dhaco dhiig dambe in la daasha ma rabo naag dambe inay asaay saarata ma rabo ilmo dambena inay agoon noqdaan u ogolaan maayo aniga dagaalka meeshaas ayuu ku egyahay ra'yigaada ma xuma annagana waan tiro raacnay laakiin cadowgaada intaas ma nana ogolaan ma laga yaaba taas inay dhacdo cidlada waxay tahay ilinteeda siday u kulushahay intaba aniga ayaa og marnaba ma ogolaanayo dagaal dambe inuu meeshaan ka dhaco ballan aniga waxaa idinka qaadaya nabad waarta inay dhacdo ee adinka isdejiye khayr idin rajaynaya dhalinyaro waa idin digayaa meeshaan waxaan doonayaa inaan gacanqaad ka dhicin haddii uu gacanqaad ka dhaco ogaada cid badbaadaysa ma laha meydkiina waa la raadinayaa ee iska tagaa idin dhihi lahaa socda meeshaan ka taga inta aadan dhimanin
hadda qalbigayga jacayl ayaa ka buuxa ma fahanteen hadalkayga maskaxdeedana deganaan inta aanan mowqifkayga bedelin waxaa idin nool inaa horteeda ka dhaqaaqda haddii kaloo ahayn meydkiina qofkii qaadi lahaa xitaa ma dhaafay aniga war adigan oo waraabooga isku ridaayo ma awooddeeda ogtahay inta leegta awood ah ma adiga awood leh quraanshada si kastoo u xarakaysa wariiri ma noqonayso muddo 25 sano ayaad ku fikiraysa markaan soo laabtay inaad didisho saacadba saacad sakanba sakan waad sugaysay laakiin maanta aniga ayaaba ku soo doontay mar hore waa ku imid waana kuu digay waxaan ku eray ha igu kallifin inaan hub qaato oo aan dagaalka galo waa diidda adiga maanta aniga ayaa lugayga kugu imaaday familkaygana waan soo wada waxaan rabaa dagaalkaad adiga bilowday meeshuu ku dhammaanaya inay indhahooda ku arkaan dabadhelfiyaasha kula socda waxaan ku sheegaa ninkii naftiisa jecla meeshaan ha ka tago ninka kaleetana ha ogaada gacanteeda inuu ku dhimanayo naftiisa maanta aniga ayaa dhaafinaya war heedha mala socotaa qofka markuu dagaal galaayo waa guulaystay iyo qofkaasaan ka guulaystay sheekada ma aha ee dagaal qofka galaasaan ayaa u dambaynayso dagaal sidiisana wiilkuma dhashay wiil ayaa ku dhinto ma fahanta hadalkayga haddaad u baahato qof dhakhtar in lagu geeyo lagu daaweeyo aniga i waco 10 sekond 10 saac 10 sana ka soo wareegta diyaar ayaan ku ahaa aniga waxaad rabto aan kuu samaynayaa laakiin aniga waxaan ku dhihi lahaa falalkan qaabdarada aad ku socotid ka waantow haddii kale god ayaad u gelaysaa masaanaad ila rabtay 20 sano 20 sano kadib masaanaad ila rabtay aan kuu aflagaadeeyo aan kuu celis dad hortooda naga tag nacalad ba adiga kugu taalle adiga qof xun ayaa tahay war shicibka haddaad u kaalmeyn lahayd aad quudin lahayd dadka masaakiimiinta oo dhibaataysanna dhibka aad ka saarnayd waa lagu ducayn lahaa dariiqdan way ku xusi lahayd maanta dilkaaga waxaan ugu joogsaday ma taqaanaa waalidkayga oo kale ayaa tahay adiga iska noolow ku dili maayo waan ku cafiyey iska bax 70 jir ceeboobiyan ahay dagaalkaanaa bilaabay aktoorihiisana ahay laadarkiisana noqday markaan waa waayeeloobi been cilmi shaydaan waaye runtaadas ahay dagaal wiil ma ku dhasho wiilaa ku dhinta laakiin aniga awoodda aan lahay iyo kibirka aan ku faanay iyo awooddayda aan dhahay dadkaan ku baabi'i qofka qalbigayga ka saare adiga ma oho misle kale waaye rakkaroonayna tahay waa kuu khiri igaarkay faarax dhukurane faarax agsheey waa badbaaday bigaygas degi ummaddii dhammas kasbadi anigana waa ay kasbadi isku dadayasha dameeraa kugu roobi aniga daysashaalkii hore iyo dagaalkii waa iska dhaafi dadka aan isku taagtaagayo xooggayga aan ku tashahay maanta ma jiro dadka dhan waa kuu sacbiyooyin dadka yay u sacbiyaan makasee masaakiinta ninkii awooddiisa xaq ay tahay awooddaada aday xaq tahayaan ku dhahay boqortinimada intana adaa iskalaan ku dhahay bilaahi badan khasiyaa ka rob waxaa lagu turjumay Fambroj Productions calankana Studio asaa loo taaga Mogadishu